markaas hooyadiina isgarab dajiyay sodohdiina wuu isgarab dajiyay gabdhaha dhibka haysto hooyadeedna hoostay gashaan sodohdeedna way fiijin cadaalad miya wiilkan asaga waxaa la arkaa inuu tii ku waafaqo ee waxay labada maamaba aan ixtiraamno labadii hooyo labada dhinac iska kala dajiyay maalinta dambe gabadhi waxay tidhi waa qiso mashhuuro la yaqaan gabadhi waxay tidhi ani hooyadaa maba arki kari idhaafi ani hooyadaa islama noolaan karno iga rar caqli muun keenin oo muu dhin adigana hooyadaa waan rari intaan bahayda mogta haddii hooyada la raro adna hooyadaa waan rari bay ahayd muun samaynine waayahay salaaddii waaga hadduu ii baryo geedi baan cagta ka gelin buuri gabdhaha waa loo dhaga nugul yihi dhallinyarada da'dana waad arteen si ay ugu dhaga nugul yihiin waagay markuu baryey buu hooyadii geedi hoosta ka geliyey suu u waday yaa duur ciddo ah oo oomano ah oo bahgooyo ah buu ku tuuray waa qiso jirta bal arrintaa ogaada aad u dhuuxa wallaahi qof walbo iimaan leh inuu ka xanuunsan waa hooyadii dhashay ee soo korisay qof walbo iimaan leh oo muslim ah oo damiir leh wuu ka xanuunsan wuu iskaga soo noqday habeenkii baa la iska seexday waagi markuu baryay waxay tidhi duqdi kolley aminkan ma noole waa lagu kala baxaye bal soo fiiri ninkan asaga la gedgedinsanayo awa damiirkiisa aw waa kacay bal wuxuu yidhi hooyadaad ka wardoontis maamadii markuu gabalka u dhacay yaa xalay wax alla wixii ciddood ahaydee duurka ku noolay dhan baa soo sawday soo qayliy waraabihii libaaxii ila meeshu waa meel duur cidla wax jooga ma laha markaasaa waxaa la waa lala hadlo waxaa la yidhi maxaad u malaynaysaa waxaan soo sawdaynaya ee soo qaylinayo maxaad u malaynaysaa waxay tidhi waxaan u malayn xoolo ilaahay igu talagalay inuu yahay ilaan malaha rabbiga aad ka malaysanayso unbaad leedahay mar walbaba ilaahay mala fiican baa laga malaystaa mala xun mar kastaba ilahay ka malaysani waxaa la yidhi ilaahay wuxuu oga dhigay geel iyo lo iyo ari wax walba ilaahay waa ahaysiin karaa hadduu wiilkii waagii u beryey wuxuu yidhi maamadii kolley waa lagu kala baxay aad bal soo fiirisid maydkeedii wuxuu u imaaday maamadii oo xoolo meelay kala dhigta bala dadkana xoolaha waa lagu jeceli adduunka qofka ugu ra'yi xun ugu liita haddii ilaahay xoolo siiyo ummaddoo dhan baa iskaga tawasuli iska daba istaagi ninkii xoolihii markuu arkayba duqdi waxaa ka galay hawa maamadii waaba taajiradba waa isa soo laabo gabadhii umad wuxuu yidhi hooyadii way naga raysay hawa maamadii waaba taajiradba waa isa soo laabo gabadhii umad wuxuu yidhi hooyadii way naga raysatay xoolo meelay kala dhigtay baa la adahay hunguri waa la jeceli sooma nin walba hunguri waa jeceli waxay tihi aniga hooyaday rar saaka hooyaday rar say xoolo u soo hesho geedi hoosta ka geli duur cidlaa meeshii meel u qaabilkeeda aadi ila xoolo waa la jecel yahay moogta maamadii baa geedi hoosta laga geliyey ila meesha xoolaa lagu sheegay bile moogta meel kale oo duur aho uu yidhi waa meesha ugu waraabo badan ila xoolaha u bataan halkii dhurwaa wuxuu isku bedelay neef geela meeshii buu aadiyey halkii intuu ku tuuray iga imaaday gabadha waxay leedahay maanta inigana ilbiriqsaa ku taajiraysaa gabalkii markuu dhacay yaa wixii waraabo ahaa ama libaax ahaa ama dhurwaa ahaa baa soo qayli maamadii waxay hay bal ka warran wallahi waxay tihi caawa habeenkii adduun iigu dambaysay caawa habeenkii adduun iigu dambaysay waxaan waa wixii cuni lahaa sida malaha ilaahay loogu kala dhow yahay fiiri lugbal baa lagu qaatay waa la cunay xumaan weligaa ha samaynin sheekhow war weligaa adi xumaan ha samaynin war weligaa adi dulmi ha gelin waagii markuu baryay gabadhi waxay tidhi waagay sugi laada orod hooyada u tag intay xoolo haysatana iisu ogow faraskiisuu soo qaatay waa soo kacay maamada wuxuu maa diriceeda geedaha la saaray meesha maxaa ka dhacda arkaysaa war nin walow hooyada si ciyaara ha ugu xadgudbin nin walow hooyadaa si ciyaara ha ugu xadgudbin hooyaday rar maxay tahy anigana hooyada aan haysto qofka waxaa yeelaya isagase intee u socdaa aakhira rajo kama qaba miya waa waxyaalaha la yaab kale ka mid tahay waxyaalaha la yaab kale ayay ka mid tahay marka waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta ah waalidkooda inay u baari sameeyaan waddadii loogu talagalayna inay ugu baari sameeyaan
aragtidayday tii lagu aamina naftayday ha afoobin hooyo araxdiyo faygay aqoontiyo aragtidayday tii lagu aamina naftayday ha afoobin hooyo nolosha ayaheeday hoygii adduunkay nolosha ayaheeday hidda lagu arooray ha afoobin hooyo